walaalahayga Soomaaliyeed kuwana nacab kuwana caayo kuwana jecel kuwana u duceeyo dhamaantiin su'aal yaro fudud baan qabaa maanta su'aashaas waxa laga yaabaa rumaysadkayga inaan ku bedelo maanta haddii la iga jawaabo aqoon loo leeyahay haddii uu jiro qof aqoon u leh sabuurada ha igu soo qoro ha yiraahdo anaa ku jawaabayo haddaydan aqoon lahayn oo hadhow aad sheeg raadinaysiin ayaan gacanta la soo taagan please waa idin baraya wax badan baad su'aalo weydiisaan aniga isoo qabo good very good ayaan le Axmed waa ballan inaan ku soo qabto maahan muran maahan dood maahan caay maahan aflagaado walaalkii Soomaaliyeed baan ahay hello halla caawiyo waaba intaas oo soo hanuuna أنا مسؤول ما قف لا فدي والله في أنا مسؤول وريا إيش ها شاد وهاي ninkan xor maahan nin xora qof xora u baahanahay please qof xora ayaan u baahanahay oo su'aasha iiga jawaabo ninkan waxa lagu haystaa qadkiisa ilaahay isna waxaan uga baryaa inuu xiroobo qof xora oo maxaan ku yiraahdaa su'aasha iiga jawaabo oo isna ilaahay ajri xasanaad maanta uu ka siiyo ayaan u baahanahay aniga ha soo qoro Facebook miyayna culamo joogin مدينة الإسلام كتادي غيرنا ميشين جوجن ولا ليالو ميدان حق لهين إن نسعاونه ميدان حق لهين ولا الكين إن جاهل بحسان وحو جاهل ككيه ولا ليالو يا دينة الإسلام كأقوم في عنو له وما أنت كرجاري وإلهي كرجارا جوابه سؤال بنقبا only one question سؤال بنقبا سؤال شخصي اللي كان هي هل كان نديك ويدين يا سؤال soo qaba igu dheh waa ku soo qabanaya waa su'aal fudud su'aal dhib badan maahan waxa laga yaabaa rumaysadkayga oo dhan inay bedesho su'aashaas haddii jawaab waadax macnaha dadku waa la isu dhageystaa bini aadanka qofka la iskama maago la iskama cayrsado la iskama noco la iskalama dagaalamo su'aaluhu qaba looga jawaabaa fartuun ma ku soo qabtaa ma iga jaahil bixinaysaa su'aasha waryaan soo qabtaa war bal aniga ii soo qor su'aashu waa maxay looma baahna yaan soo qabtaa walaalayaalow oo maanta su'aashan iga jaahil bixinaya oo ilaahay ajri xasanaad uu ka siiya isoo qabo okay brother de walaga daba buuqaya maxaan ku soo qabtaa walaalo xorba midtiida maxaan ku soo qabtaa walaalo waa ku soo qabtay war Soomaaliyeey meedan muslim ahayn hello meedan maxaan ku iraadaa gargaari karin war meedan dadka lunsan u yeeri karin war meedan aqoon su'aalaha inaad ka jawaabtaan waan ku maqlaa saaxiib مسوح رودي ما حرمة ما ولادك محمودي إن معنا قف عادي الله الله ساويد بو ينردح قلي ركبت به هذا سودة هي ولا لو قف عادي وانا هيدي أرثا ما يعني كل عادية مسوحة كل الله يفهم معناه كل عادية حاجة كتمت قبل كده كتمت سوالي waxaan ka imi su'aasha aad soo daa ma macnaa inaan ogaado u baanahay taas laftirkeeda ma sheegi kartaa gobolkan ka imiya ha koonfurta Soomaaliya waqooyiga Djibouti waqooyiga insha Allah waqooyiga luqad fiican baa lagu tilmaami jiray maxaa kugu dhacay maxaan ku hadlaynaa luqad duwan miyaan ku hadlay okay صاحب كسعتاس وحوين ما اسكمنا قبصنين واي اسلامكم متقنا دين اسلام كسفي عن متقنا مس وقت بعد قالوا من يسان وحي إلهي ونقبره وكنا قانا هي متقن تفسير القرآن سو مديني سؤالي كانوا عدول بموي ديني تفسير القرآن كم متقنا ونن ما أنت سؤالشان مسكحي في جوريسو إجا عاون كرا متاعي ها إن شاء الله أوكي سؤال شيء ده يفضل أد بيفضل وحين كم متاعي طبعا سؤالات وأنا سويتي وهلك السؤال وقفوا ضيط بسوق عطي وحنا قوان صدي قف الصقون عايتمن إتشكارين يقبوقين الربشن سأقول له وجد جواباتها هلا إن أد وقفكري تونا عردان وقرت لقنا يا أبا بينا قوان كقاطو مركا دي جوابي سيد
waxaan kaa codsanayaa inaad miisaan u yeeshto hadalkaaga sida ilaahay kugu ogahay inaad uga jawaabtid waxaan aad ugu wareersanahay oo aad aan ugu wareeray oo maskaxdayda weli ka daadegi la ilaahay inuu qaadir yahay waa wada rumaysanahay adna waad rumaysan tahay qof kastoo diin lehna uu rumaysan yahay qofkaan diin lahayn ilaahay inuu ka sarreeyo wax walbana waan rumaysanahay ka awood badan yahay adduunka aan ku noolnahayna isagu inuu abuuray waan rumaysanahay oo taa qofkii ka dooday waa isaga iyo helkadii su-aashaydu waxay tahay qur-aanka waxaa ku qoran ilaahay inuu carshiga joogo ka sarreeyo ma joogo kuma qorne halkay ku qorantay joogo summa istawa cala alcarshi istawa ma ii macnayn kartaa istawa ay cala ma ka kormaray wey istawa joogitaan carabi xataa okay istawa ahaansho miya waa ahaansho summa istawa cala alcarshi maya wax yar isug istawa erayga carabi ahaan muxuu naxwo kuma baranayno halkan naxwo kuma baranayno suurad quraan aan kuu soo saarayaa waad ii macnaynaysaa oo keliya okay aayadde waxaad la soo baxdaa alfurqaan aayadeeda 59 la soo bax suuratu aayadda hee aayadda 59 alfurqaan suuratu alfurqaan aayadda 59 waan gartay واي وكوهيا كذلك وأورثناها بني إسرائيل لماذا صباحي سورة نقول درسنا الفرقان في فرقان بدقتي شعراء سوري شعراء ده شعراء قمدين واي الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض إلهي السماء إيه أرلض أبوري هي إلهي السماء أبوري عركة كما بلا متوحى كبلا الذي الله الذي وصفه إلهي خلق السماوات والأرض نوع معنى هذا نوع معنى الذي aduu ama samada hormari ama dhulka hormari ama dhulka hormari waa isla meeshii waqti baan ku siinayaa noogu macnay aayada hay laakiin waxoogaa fudaydka waxaan rabaa inaad moogti chance soo degdeg waa wuxuu dilaa dooda xaq baa dood maahan walaalahay macane dood maahan waa su'aal ama sheekh caalima tahay waxbaad iga jaahil bixinaysaa ajir baana kaaga socdo dood maahan kulama doodayo ha malaynaan kula doodayo waa su'aal marka adiga laftirkaaga inaan naxariis samaysid isku day way insha Allah horta aayadan waa lihaaq siyaaqa kama maaranto inta hore waa in lagu xiraa inta dambe hadda ma fahanti alladhi macnaheedu kama bilaamato marka wuxuu ka bilaamayaa anaysan ka codsaday aayada kuma weydiin 58 iyo macne aayada 59aad ma macnayn kartaa okay intaasan ku weydiistay waxba yaan la qarin alladhi قل marka laga soo bilaabo intaas oo dhan isweydiisay buu leeyahay haddana si sifaynay ilaahay wuxuu leeyahay alladhi alihi weeye khalaqa abuuray as-samawati samooyinka wal arda iyo dhulka iyo wama baynahuma dhulka iyo cirka waxa u dhaxeeya ku abuuray fi 6 ayaamin 6 maalmood gudahood thumma انت دبديدنا استوى ككرمري على العرش عرشك دشيسه استوى على العرش وكدل مري marka ma noo fasiri kartaa maxaa loola jeedaa وكدل مري ilaahay subhanahu wa ta'ala
waxa uu ka sareeyaa khalqigiisa khalaa'iqdiisuna عرشك way kala عرشك sareeyaan قلقي كما هلي قلقي كما هلينا موضوع قلنا إلى ذي ما carshigu waa khalqigu ka كان mid وحن yahay كهلينا عرش وحين كهلينا throne of God وضلع هذا تام اسكو دي دنا ضلع عنشا مركب ميو كفديا أو فيري أنا قاعد كرسي جايس وان ضلع هذا دوشي سنجوجا لبا معنى يعلن كرتا مر أنا كفديا ساسو كفديا دوشي سناي صح مرنا وان دل جوجي كرا marka kursigan ilaah in lama dhigin kuraasta ilaah kursigiisu ama arshigiisu ka dul ahaaday good ilaahay arshigiisa marka miyuu ku fadhiyaa mise uu dul joogaa oo kaliya su'aasheeda waa taa uu ku fadhiyaa halkan kubaba qornaba uu ka dul ahaaday baa ku qoran uu dul ahaadayna waa ka sareeya sida khalaa'iqdu ilaahay u kala sareeyaan cirku cir uga sareeyo maxay ahayday carshigu uu samooyinka uga koreeyo kursiguna uu carshiga uga sii koreeyo baa ilaahayna uga wada sareeya marka carshiga makhluuq ama kursiga makhluuq ka sareeya ma jiro ilaahay baana subxaanahu wa ta'aala ka sii kor ahaaday marka mushkiladu xagee ku jirta okay kursigaas hadii booskiisa laga qaado ama carshigaas إلهي مودول صعنا يا مسوكار يا ماشى سوكار يا إن القرآن إلهي سبحانه وتعالى إسقى هيا إيكال سب إلهي بهاي إيه جيسو العرشجا يا كرسيجا يا سموينكا يا دولكا يا مخلوقا يا وحب إلهي بهاي سبحانه وتعالى إلهي أمبا هنا وح عليا وهي يجون تشرين بو الله تشري سبحانه وتعالى ما فهمت إلهي بهاي لكن قرآنك وحكو قرآن مالك يوم القيامة إني سديت ملك قاضي عرش إله سؤال شيء ده وحيت هاي إله كرسي جيسي عرش جيسي سديت ملك أو قاضي سو إله بانا أبو ري وأطر ما يسنتهاي يا وين سديت ملك أو قاضي عرش إله إله يا وين مع الله صبح على سورة الحق طبعا والملك أيد شيء سمع والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أنه حد قلت إله ونكسر ياون سلا هل كان وحاكو قرن مالك يوم القيامة إني وأوجه علماء وحيكون فسران كمنان ملك هرت تيورس إسلامي نقال تيورس إسلامي نقال يكفر دي إني سن ماشي كفرني إسلامي نقال أو صوما كلام قاعد مشكلته حاجة كتير سألتنا كل قاعد حاجة كتير مشكلته استوى كلمة استوى على العرش وأهانش ماشان لو ما عدين إنه كفريو إنه كسر عمر عمر إنه وحنا لو عدين إيه كذا إيه كذا عاد هذا يسوع أغرسي ثم استوى على العرش هاي وهو كسر يا وقرع سنة على هذا سيا حموجنيسا نعم وكسر يا سمع علامة استوى أنا استوى أهانشوا يا ما كانشوا إيه كذي لكن هل كان يا حاجات كبرت العربي استوى أهانشة كينية حقوقي يا العربي إيه كذي صاحب أنا اللغة كلمة دودي وحبها إسقاط قال يا صومالي ما هو إحنا دول لغة كلا وعربي نحو كلمة دودي عربنا كلمة دودي ما يرجع لكنها بدلين ولا استوى يعني هذا أهانشة ما علماء أكثر هذيك ما إنا مرنا ربطة مسئين سؤال كويدي هذيك جوابتي لبدا هيك لصار ما يا سؤال شيء أدي ويديسي بان كاجا جوابي واحد تري إسلامي إنان قادن قسم المركة أودو يلا أريجنا وحكلاتكم معنا نيسا أوكي ما شيخ ما دام وداد وين أو علم له التهاي أو دون يدتك إنه هديه دين إلهي إنه حب دانشوا وحنقعد سنة طلقات مركة هرت وقرر وحلاقيها ما أنت هنا تسامين يقول سمين لكن مدة كليو تسامين يقول سمين كرتيت وعاديك أو في صدا هذا الكاجا واحد دهيسي ثم استوى على العرش ده إيه كذي بهذا الكلام ما يستوي هي لكن إيرج الذهب هذا ترى هذا هي هذا الكمرك أنت هذا جسوك ويا هذا البلان أنا كل رئيسنا تبى الكورن إيرج ذهب هذا ما أنت تقول إني ترى هذا إن وقلي ويان أنكو هذا وقلي ما هي إيرج الذهب وحلا استعماله وتجي وهرج أنا سلنا قلنا من مصيبة هين أرجع استوى هذا ميل
carabi ay kaga qoran tahay ma jirto adiga laftirkaaga hadda markaad ii macnaynaysa aayadda waxaad ugu tiri ilaahay wuxuu ka sara maray carshigiisa ha okay ilaahay carshiga hadduu ka sareeyo ma aaminsan tahay ilaahay inuu meel walba joogo mase carshiga korkiisa kaliya joogaa joogista meel walba ilaahay joogaa waxa laga hadlaya waa cilmigiisa yani sida kuwa u dhow sida carshiga oo kale iyo malaa'igta oo kale iyo kursiga oo kale iyo ay ugu dhow yihiin uu arko buu ka fogna u arkaya iska daa xataaye ka qol madow ku dhex jiro arkaya iska daa xataaye qalbiyada waxa ku jiro arkaya topic waad ka leexatay islaamka oo dhan baana dabeecadan yaqaan anu haddaan professor ahay jaamacad dhigo buugaag qoro oo buugaagtayda afrika lagu dhigo iskuulla iyo jaamacado ku yaalo dee anigaba cilmigayga adduunka oo dhan buu joogaa taa wax macnaa ma samaynayso aniga ilaahay cilmiga waxa laga hadlayaa horta dawal ku dhageyso ogaanshaha ka hadlaya waxaad barataa akhlaaqda wada hadalka bara marka hore qofka markaad la hadlaysid markuu ku dhageysto markuu kula hadlayo waa la dhageystaa taa baro taas aad kaaga maqan tan anu marka cilmi kama hadlay laakiin markaan kuu jawaabaya bal adiguna hadalkiisu ilaa waxbaad weydiisay wayna ku jawaaba ha noqonin kii weydiinay iyo kii waliba ka jawaabay gadaashaasaan buu degaya anu gadaashaasaan buu degaya markaa hadlaysid laakiin adaa waxay kaa yara maqan tahay akhlaaqda dhageysiga waana de maadaama walaalkay aad tahay soomaaliyeed waan ku xasuusinaya wax weyn ataagna u arkin anu ilaahay way hadalka hadda dhamayso oo jawaabtan ida ilaahay cilmigiisa kama hadlay cilmiga ilaaha kama hadlay waxaad igu tiri aad igu macnaysay suuradda hadda aad ii akhrisay al-furqaan ama furqaan suuratu furqaan waxaad igu tiri ilaahay wuu ka sareeyaa carshiga waxaan ku yiri ilaahay maadaama carshiga uu ka sareeyo meel walba muu joogaa marka cilmigiisa ilaahay anu kama hadlay ilaahay cilmigiisa shakhsiyadiisa ka hadlaya ilaahay qudhiisa ma carshiga kaliya ka sareeyaa mase meel kastuu joogaa su'aashu kugu soo celiyay markale ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu ku cadeeyay halku joogo wuxuu ka sareeyaa khalqigiisa wuxuu ka sareeyaa samooyinka wuxuu ka sareeyaa carshiga wuxuu ka sareeyaa kursiga yani wax ilaahay ka sii koreeyo ma jiro wujuudkiisu waa ka arrinka inuu wax walba uu og yahayna siduu ka ugu dhow ee xaggiisa u dhow uu u arkayo buu ka fogna u arkaya bimacnaa waxa weeyaan aragtida uu ka u dhow arkayo buu ka fogna arkaya in allaha macakum joogitaan uu daatadiisa uu ku joogaa dama jirto meel walba okay ilaahay meel walba ma joogo islaamkana ereygaasi waa lagu gaaloobaa diinta laga baxay ereyga meel walba alla waa jooga ereyga oo si toos loo yiraahdo ilaahay baa toos meel walba u jooga waa gartay interesting niman la yiraahdo xululiya baa culimadu ku gaalaysay oo suufiyada kamid ah xululiya oo yiraahdo ilaahay baa daata ahaan shakhsiyadiisa meel walba joogta waxa kamid ah meelihii musqulihii baa kamid ah kudaafadihii baa kamid ah kalaabadii baa kamid ah waxa kamid ah in ilaahyo badan ay jiraan oo meel walba waa joogaa tajazu baa ka dhalanaya in uu qaybsamo marka wax badan baa ka dhalanaya diinta islaamkana waa aqaa'idda islaamka waxyaabo lagaga baxo ilaahay daatadiisu meel walba jooga waa eray gaalnimo islaamka dhexdiisa maxay ahayday uu ku mutaysanayo qofka hadduu aamino uu caqiidaysto amaba ku hadlaba maasha allah aad baan hadda kuu fahmay hadda kuma dhihi kari kuma fahmin hadda si fiican baan u fahmay rumaysadkaaga iyo qaabka u sharaxday okay maadaama ilaah uu dul joogo kursigiisa ama carshigiisa haddii carshiga meesha laga qaado ilaahay muu raacayaa mase uu ka harayaa su-aasha iga jawaab ilaahay marka horeba kursigiisa ama carshiga kuma fadhiinba carshiguna waa makhluuq ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray dul jooga kuma fadhiyo okay kuma fadhiyo wuu dul jooga kursigiya meesha laga qaaday ilaahay muu ka harayaa mise uu daba soconaya su-aashayda waa taa de su-aashaada si yaro basiita ba haddaan uga jawaabo carshiga iyo kursiguba waa xuduud bay leeyihin yani waa wax aan hore u jirin oo gadaal ka yimi ilaahayna wuu jiray weligii iyadoon makhluuq oo dhaniba aanu jirin
waxa la isweydiinaya marka kursiga hadduu alla wax u noqonayo uu dhacayo marka laga qaado ka hor muxuu ugu noqon waayay اوكي سؤال لكن كم ويدي ولا لو قعليه في الصومالي بنقول هلا أنا سؤال شيء كم أنا ندين إلهي معرش كهر بوجري مسك جدال بوجري ونقولنا إلهي إنه أولها وحول بوكوري تات واحد هذا كما قبل لكن سؤال شيء وحيت هدي كرسي جا يعرش جا ماشى لقى قاضي إلهي ميو راعيا مسوكاريا سؤال شيء دوتا دمر كهرباء كم فريبا سوما هينو كفرديو كم فرديو لكن ودل جوجا دل جوجتان كان قال عرشي بقى ماشي لقى قاضي إلهي مركا مدبق يا عرشي دل جوجا مسوكاريا أنا فردي كم بعلم بقى هدي ماشي سلقة قاضي وكرسي قصيدي سماش وقتها قبيت كودا كرسي قاعد لقى قاضي إن القرآن كو حقو قرآن هدات سورة الحاق في رسيد عادة تطبيق طبعا والملك على أرجها ويحمل عرش ربك فوق أرجها معها أرتي ولا الكدا دي أرتي سيف عن واخري وغلط ميدي وغلط واحد آخر يصير دم بغلط سيف عن واخري أرتي أرجها شغل إيه كفيري شغل معها معناها دن إرجع يسبدلية إرجع دم بيسبدلية معناها بل واحد نوع آخر الساعة إيه كفيري أنا وانا غنى وده سيف عن وانا غنى سؤال عادي أمريكي لو إديو هوصلوا كردوا مت قف وحاسد كو عررتين أنا وحاس ما وحنا صعدوا أنا قلت سؤال شيء ذو حيتاي عادة وحيسعد كله ذاك ملائك سديد ملائك أيا قاديسو عرش الإله سؤال بنكوي يدو عن كويري مركل ما ينكرسنت هرتيني قادة سديد ملائك ومذكور قرآن أي كجرته شيء لا ينكر كلامه ما ينكرسنت ما عاية ما يده ما ينكرسنت تمام أيضا أدخل إصابة كنت عليه صانو ينكريه اوكي كرسي ولا قاده كرسي كان marka la qaado ilaahay ma meeshiisu ku haraya mas kursigu daba soconaya ilaahay subhanahu wa ta'ala booskaas uu joogo aan lana sifayn karin qaabka uu ku joogo maadaama aan ilaahay arag ayuu joogay waa tan labaad ilaahay subhanahu wa ta'ala arshi la'aan iyo maxay ahayd kursi la'aan baa uu soo dega oo diinteeda waxa ku jirta inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala niska dambe ee habeenkii uu soo dego una weydiiyo maxay ahayday makhluuqiisa waryaa wax weydiisanaya oo wax siiya yaa dambi dhaaf weydiisanayaan u dambi dhaafaa ilaa iyo waxa la midka ay su'aalaha la midka hadda ma garatay haddaba su'aalaha kuma weydiin aniga su'aalan hadda waxaan leedahay mid daba raaci ya waxaana ku weydiin baa hadda iga shaqeynaysa dulqaad uma kugu dhageysanaya maana waxaana ka hadlayso dhanba kuma weydiin anigu waxaan ku yiri sideedan malag marka ay qaadayso carshiga ilaah miyuu ka haraya mise wuu daba soconaya waa inta maadaama adiga laftirkaaga aad igu tiri ilaah meel walba ma joogo oo carshiga korkiisu u ahaaday sideedan malag marka ay qaadaan inaan Soomaaliga isla fahanaa fiican carshiga rabbiga ama kursigiisa miyuu dul ahaanaya mise kursiga kaliya la qaadaya أنا سؤال شيء ده وأنت طبعا مركب بدن بنقول سؤال عليه هذا ما يكلا دلها ديسا أنت كلي يجي جواب ما أنت قيامة الله سبحانه وتعالى وح كحسن حديثته إنه خلق جيسا وإسكشف الدونا أو جدها يسقى الدونا أي أركي الدونا يطالع عن دونا عرش جن لا سيدة إلا قاضينا ما ها سيدي بقر كتشيفة أو حويان لجوك حينيو كم ويدين كم دين إلهي ميو إسمارك تدك اسم مرجن دونا ميو إسقارين دونا وحصلهم كم ويدين وقت قاعد تكلم نيسا سؤال شان كويدي وعاودا وهو سؤالنا وحيتاي كرسي كان مركب ماشى لقى قاضي إلهي ميو كهريا كرسي كا مسوي كرس عنايا ما دام هذه أفكار يقتره وكسر ريا والسؤال فضل هذا لنقول ما غاني ده دورت غيبيات كيبات وحيابها هلك كره هذه نساء مصيبة غيبيات كيبات جلسة ومد اللبادة إلهي سبحانه وتعالى محايس كجحري ملائكة قادتان كودين يسوي كرسي قد بصعدون يعني والسؤال ده أن معنا بدن صمينين مرك الله قال هين إن غيبيات كإلهي سبحانه وتعالى هو قارة لقلا أو للداخله ولو قلنا الدنباب وحنا هين أو كتشير أو حكمة أمتشرو هذا حكمة يجمع مغضب محل كيف إيدك أنت اوكي جوابت هذه وحين نقطه والسؤال عن واحد معنا سمينين طبعا هلكن وان قال ويا غيب مسلمه
وريا هذا مانتي ضيناك وان كنت جيسنا إيه اكفير مركا هليس وان كنت جيسنا دلغاد يالو هاي dulqaad yeelo maanta halkan waan ka hadlay waxaan iri waryahan muslina maantii waxaa laga yaabaa inaan soo islaamo hal su'aal oo fudud baan qabaa هاي waxaad tiri anaa caalim anaa kuu jawaabaya tiri oo kusoo dhaweeyey هاي 15 daqiiqo ka bacdi waxaad jawaabtaada kusoo gabagabaysay su'aashani مم. maba aan su'aal muhiima horta nin aqoon leh waa tahay oo waxaad لكن ما baratay waa تفهم taqaanaa ما تفهم anaa لك kuu sheegay dhegaysaade مم. laakiin su'aashu way kugu adkaatay niyo su'aashu way kugu adkaatay ما هي لكن ما وحا مهمة waxay tahay aan dhamaysto niyow هاي sal fudayd baa la yiraahdo aad baa u sal fududahay haddaa xoogaagaan cilmiga sal ku darsan lahayd nin mucjise baad noqon lahayd oo la dhagaysto laakiin arrintaa maanta iga faa'iid sal yeelo weligaa markaa dadka la hadlaysay su-aasha ugu fudud aan ku weydiiyey waxay tahay war ilaahay carshigiisa maalinka 8 malag ay qaadayso miyuu raacayaa mise wuu ka harayaa fursaddii ugu dambaysa wey de carshiga waxa ka dhigtay sifo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay oo aan ka foqayn horta inuu makhluuq yahay oo malaa'ig qaaday miyaadan ogeyn maxaa ilaahay iyo iska galay carshiga waatana miyuu makhluuq yahay maqaaliq baa maahan su-aasheeda adaa afkaaga waxaad iga tiri ilaahay suma istawaa cala alcarshi baad ugu tiraad aayadaad aqrinaysa sax maadaama carshiga uu dul joogo haddii carshiga la qaadi karaba oo malaa'ig ay qaadi karto ilaahay ma meeshiisuu iska ahaanaya mise wuu dabagelayaa waa su-aal fududniyo de meeshiisuu ahaanaya oo weligiina ahaa makhluuqan carshiga ka hor meeshiisi uu ahaa ayuunbuu ahaanaya haddama garatay carshigu uu ka dul sarreeyana ma aha macnaheedu exlaad yani wuu ku beegan yahay ma aha wuu ka sarreeyaabay ka dhigan tahay oo makhluuqiisoo dhan buu ka sarreeya wax ilaahay ka sarreeya ma jiraan unbay ka dhigan tahay ma aha yani uu dul haaraysan yahay oo uu ku beegan yahay ma aha macnaheedu hadalka gadaal buu horta kaala xumaanaya oo markii ugu horreysay codkan isnari wuu duugan yahay codkan isnari wuu duugan yahay waa wax duuban wax la inkiri kara maahan daqiiqado ka hor waxaad lahayd ilaahay carshiga dushiisuu ahaaday inkastoo aadan sii sharaxin ku beegnaan ama yuusan ku beegnaan laakiin hadda waxaad tiri haddii carshiga meesha laga qaado ilaahay meeshiisuu iska ahaanaya marka aayadaha hadda adiga aad iisoo akrisay طبعا oo dadku uu maqlayay arraxmaana cala alcarshi istawaa waa suuratu taah aayadda 5aad aayaddaas maalinkaas wixii ka dambeeya ma beenoobaysaa su-aasha iga jawaab maadaama ilaahu meeshiisa ku harayo lagana qaadaya carshiga meesha aayaddan 5aad ee suuratu taah maalinkaa laga bilaabo ma aayadan jirin bay noqonaysaa maalinka qiyaamaha kadib waxaad ugu tiri carshiga markii meesha laga qaaday ilaahay meeshiisu iska ahaanayaa baa tiri uu ka sarraynayaa mar walba carshigiina waa la qaaday aayad qur-aanana waxay leedahay arraxmaana cala alcarshi istawa aayaddan marka maalinkaas ma la nasabaya arraxmaana maaha horta waa arraxmaan wey arraxmaanu arraxmaan wax macnaa iima samaynayso aniga macna iima samayso adaa rumaysan oon kugu tixgelinaya ogo horta taa waa inay fahantaa arraxmaanu waxay rabtaa noqoto ulujeedada meeshan ku jirto waxay tahay aayaddan aad soo qaadatay ilaahay inuu carshiga ka horta cumarow waayahay bal qofku hadduu rabo aayaddan su-aashaana baarno shaqal iyo mid iyo qif iyo hoos dhow iyo kordhow ha ku cararin meeshan waa su-aal waxa la isweydiinaya damay waxa waa luqad haddii aad xaraf jebiso macnaha dhan ba isbedelaya my brother aniga waxaan kuleeyahay ha qaadan waxa qoran ayaa muhiima aan isfahanno habraha lagu maaragtay markay tukanayaan qol wallah akhrisanayaan ba waad hoos dhowday waa kor dhowday anu meeyi anu nin su'aal ku weydiinayaan su'aashaan ku weydiiyay waxay tahay ilaahay maadaama aad tiri carshiga maalinka 8 malag ay qaato oo meesha laga wareejiyo waxaad tiri ilaahay meeshiisu ku harayaa good maadaama adiga aad tiri ilaahay meeshiisu ku harayaa aayaddan miyaa la nasaqayaa mise way sii jiraysaa su-aashayda waa taa sidee loo nasakhayaa iska galay aayaddan arraxmaanu cala alcarshi istawa iyo carshiga la qaaday xagee wax iskaga imanaya marka aayadda noo macnee anaa ku tusay wax iska gala bal aayadda ii macnee arraxmaanu cala alcarshi istawa soo ma macnee marka dee allah raxmaankii wuxuu ahaaday cala alcarshi istawa
عرشيقو عرشيقي ماشي أيو يو هذا يو كسر كسر يا نوع عرتو ده waxaad ii sheegtay carshiga in yawmul qiyaamaha 8 malag ay qaadi doonto ilaahna uu meeshiisa ku harayo daqiiqada ka hor marka aayadani ma run bay ahaanaysaa mase maalinka wixii ka dambeeya laguma dhaqmayo that's my question in aayadda waxay leedahay ilaahay carshigu dul jooga maalinkaasna malaa'igta markay qaado carshigii meeshuu yaallay waa laga qaaday that's my question brother de carshigu mar walba alla waa ka hooseeya marka la qaado iyo markan uu yaalo mar walba carshigu alla waa ka hooseeya oo makhluuqiisa walba ka hooseeya waxaad isu kay qabadsiisaa hadday ta afkaagaad waxaad ka lahayd ilaahay meel walba ma joogo طبعا ama kugu been abuuranaya maya waa maya ilaahay meel walba ma joogo ilaahay meel qaasuu joogaa adaa igu yiri sax jiho kursigii meel walba ma joogo jiha qaasuu joogaa baad jiha qaas meel gaar ah oran jiha qaas hay whatever luqadda harta ugu yar يعني جهada sara unde sare muhiimadda okay muhiimadda maaha muhiimadda luqadda maaha muhiimadda waa inaan isla fahamno su'aasha ilaahay maadaama aad tiri jiha qaasuu joogaa jihadii kursiga uu yaalay haddii laga qaado adna aad igu tiri ilaahay jiha kasta ma joogo isu kay qabatiin ilaahay wuu sareeyaa waa jiho sarayn hoosayn bidaxayn midigayn waa jiho marka ilaahay waa sareeya oo makhluuqu ka sareeya carshigu ka sareeya jiha saraynay tilmaamtaa iyo walibana ammaan ee ma tilmaamayso carshiga inuu ku dhagan yahay carshiguna inuu ilaahay ka hooseeyo ayaa ka soo horjeeda inuu ilaahay ka sareeyo waa isku macne haddaad tira carshiga ilaahay ka hooseeya haddaad tira ilaahay baa carshiga ka sareeya waa nafs almacna ismana diidayso ayna almushkila anu kama soo horjeeday fikirkaygana weli kuuma sheegin laakiin adu maadaama sheekh caalima oo wadaada oo dadka maaragtay u asxaanfala aad tahay oo laga faa'iidaysto horta caalimi hiye laakiin imaadan fahmin ma ka noqotay okay hadda ka noqotay dhib ma lahan maya horta ala kulli xaal nin waxaa tahay cilmi leh waa ku dhageysanay marka hadlayso haye oo faa'iideeyo dadka u faa'iideeyo su'aal yar baan ku weydiiyay hadda nus saac baan wada hadlaynay hadda cumar oo hadalkeennii haddii la fiiriyo way kugu dhib badnaatay boqolkiiba 95 adaa hadlayay tobanbaad aniga i siinaysay tobankana welibana oo digdig iyo xoog iyo maxay ahayd wixii aad leexisay no de waxa weeye luuqadiiba xataa waxa weeye saa doonto u macnaysanaysaa maya brother bal hadalka inoo qayb waxaan jawaabtiinta kaga jawaab ani adiga waxaan isniri way duuban yihiin su'aalna iguma ka harinba su'aalihi aan rabo dhan waa ku weydiiyey dadka kalan soo qabanaya qof ka cilmi badan waa intaas oo aan helaa adiga okay 30 minutes su'aashaydiina weli kama qancin haddii qof ka cilmi badan uu joogo ayaan fursad siinaya laakiin waxaan kugu leeyahay waa mahadsan tahay laakiin su'aal yar baa ku weydiinaya adigana bay su'aal yar baa ku weydiinaya maadaama horta maya waad su'aal yar baa rabaa inaan ku weydiiyo de kristanka waxaad ugu jirtaa daaci ama waxa loo yaqaano unrufer yani inaad dadka ugu yeerto soo ma maanaa kugu yeeray horena waxaad u ahaan jirtay dee nin muslima bal waxaad ii sheegtaa dhagaysa hadda waad xukumaysaa waa kaa dhex galaya hadalka weli ma aragtay anigoo inta kugu yeero weligay inta ku imid daacidaan ahay meen kugu yeeray ama xataa meelan ku yeeray niqaash kay kamid tahay inaad leedahay ogaada hadda iska xukumaysid fiiri macna qofka bini aadanka laguma xadgudbo walaalo gacaliyo hadda iska xukumaysid su'aalo yar baan rabaa inaan ku weydiiyo oo diinta kristaanka ku saabsan hal arrin baan rabaa waliba bible-ka ka weydiinaya meel kale ma adu soo quraankiga mad weydiin hal arrin baan rabaa inaan xasuusiyo hal arrin halkan markaan dadka u yeerayo aad soo qabsanaysay kelmadahan isticmaalay ma xasuustaa kelmadahan mise qiiro un baad la soo kelmadahan isticmaalaya bal dib wax ma ka xasuusan kartaa yaa garanaya baa tiri oo iga jawaabaya aan ku saxa haddaba dad badan oo na dhegaysanayna way joogaan war waxaa iri 11 su'aalood oo waxaa jirta aan islaamka uga baxay haddaan maanta sheekh caalima oo ii cilmi celiyana hal su'aal oo kamid ah baan idin weydiinayaa waxaa laga yaabaa inaan wax ku qaato wax badan baad su'aalo i weydiiseen
idinka jawaabay waryaay caawinayay baa hadalkayga waad ii timid inaad caawisaad igu dayday markaad caawin weysay anigii baa hadda su'aale markaa igu bilaabaysaa qaabkan ku soo laakiin de taas waa infiraar waryaa maanta war maanta yaa caawinayo marka umaadan soconin inaad caawisay umaadan marka hore waxa ku qabin in yar dhigeyso horta in yar dhigeyso hadda adigu waxaad isku dayday inaad shubahaad ka dhex daydo الرحمن على العرش استوى وانا كو عديي لكن ده marka xaqa iyo صحوي هي aad rabto waa meesheeda marka kalena deeyo madaxadaygi wax kale kugu jirana wad arkaysi de in warkan ku cadeeyay ina aniga waa madax adag tahay dhahdid ku laakiin isku day maya isku yar day su'aalahan saacan ku dhageysanayay hal saacan ku dhageysanayay wax jawaab ima siin dadka ka cilmi badan inaan ka faa'iideysto iga hor istaagin 30 minutes baan ku dhageysanay hadaa xushmay waysid waa iska ka dajin that's all kama gardarni saaxib dadka way arkaan fursad baan ku siiyay maanta waxaan u baahanahay sheekh muslina oo maaragtay caawiyo ana wali taasan ku adkaysanaya igana jaahil bixiyo su'aalaha aan qabo waaba intaasoo ana shahaata maanta waa inta hadalka horaan ere laakiin qof cilmi igu caawiyo oo iga jaahil bixiyo su'aalahayga ayaan u baahanahay uma baahno qof jikaaro uma baahno qof ila doodo uma baahno qof ila murmo war diyaar ma u tahay inaad caawisid walaalowga caliyo ajir ma shaqaysanaysaa hadalkayga kaas waana iga daacad waa hadalay waxba ku jirin ina qof inta ku yimid ku yiri war walaalow waxaanan jaahilka ka ah iga jaahil bixi qofkaas kala la dhibaa waa maya lama dhibo waa la caawiyaa waxba loo sharaxaa waxba la fahansiyaa hadduu fahmi waayo waa laga tagaa laakiin qofkii marka wax fahansiin weysid inaad caysid walaalkaaga jaahil ah waa la caawiyaa walaalkayga oo jaahila oo Soomaali ah oo gaal ah oo hal su'aal kaliya diinta uga baxay oo idinku leh war walaalayaal oo halkii su'aal oo aan diinta islaamka uga baxay walaalayaal uga caliyayaal igu caawiyo waa intaas ilaahay ajri xasanaad walaalayaal caaydiina ma rabi walaalayaal habaarkiina ma rabi walaalayaal nacaybkiina ma rabi walaalayaal iga jaahil bixiya fadlan iga jaahil bixiya waa inta wariyaa aqoon leh oo arintan iga jaahil bixinayo oo غير shaqaysanayo oo asna ilaahay ajri xasanaad oo siiyo anu intaasan taagnay maanta nin jikaartan u socda may wala kibir baana wadan wala diin baana beeninayn wala qolo kale taanan xujaynayn war may caawin karteen su'aalayga miga jawaabi karteen waa inta haddaad aqoon u leedahay walaalow gacanta soo taagto walaalayaal waa inta adinkana ajri xasanaad baad ka heli doonteen insha Allah ta'ala